xubno ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Boorama ayaa maanta cabasho ballaaran ka muujiyay isla markaasina baaq u diray xukuumadda Soomaaliland inay si degdeg ah u soo farageliyaan khilaafka baaxadda weyn leh ee hareeyay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama taasi oo ay maanta ay sheegeen in ay khalkhal ku jirto xaruntii dawladda hoose ee magaalada Boorama isla markaasina aanay hadda wax shaqo ah ay ka suurtageli karin shaqaalaha dawladda hoose oo iyagu maanta shir jaraa'id ku qabtay howlka weyn ee dawladda hoose magaalada Boorama ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa aniga magacayga waxa la yiraahdaa Muuse Cilmi Gaalib waxaan ahay agaasimaha waaxda cashuuraha waxaan ka shaqeynayay dawladda hoose muddo 32 sano waxa weeye ma aan arag anuu qisadan ka dhacday shalay dawladda hoose ee Boorama kuma aan arag maanta ka hor gaari lagu gooyo dawladda hoose albaabkeeda oo la yiraahdo shaqo ma soconayso waa dawlad la'aan wey annagu waxaan leenahay ka shaqaale ahaan xildhibaanadu hadday isqabanayaan dibadda ayaa arrintooda ay ku gali jireen tii maaha waxay noqotay inay xeerada dawladda hoose ka dhex bilaabaan qalalaasaha iyo isorimaadka iyo gacanka hadalka iyo in albaabkiiba gooyaan war meesha annagu waxaan ku leenahay xuquuq 32 sano ma ogolin kamana yeelino nin albaabka iyo shaqada carqaladeeya kama yeelino waxa Allah xilnoo hayaana ma jiraan kama yeelino markaa inay halkan gooloftan kubada ka dhigtaan aan waxaan ahay agaasimaha maamulka lacagta dawladda hoose degmada Boorama Cabdiraxmaan Maxamed Cumar arrimo aad noo khuseeya dawlad hoose ahaan ayaa shalay ka dhacay dawladda hoose xildhibaanadoo dhan maaha waa dhowr xildhibaan 2-3 oo albaab ku gooyay albaabka dawladda hoose geedka weyn main geedka baabuur ku gooyay dadkii ka adeegan lahaa dawladda hoose arintaas carqalad badan bay u keentay dakhli ururintayadii dawlad waxa uu keentay dhib badan lacagtii khasnada taalay oo 12 milyan ahayd oo bangiga la geyn lahaa khasnajigi wuxuu waayay baabuurkiisii meel uu ka saaro go'aan degdeg u qaatay oo una nagala tashan gacan buu ku qaaday 12 milyan oo dawladda hoose laga qaaday oo bangiga lagu geeyay gacan maxaad u malaynaysaa oo suuqa la sii dhex maray khatar bay ahayd ninkii meeyar doonaya inuu noqdo de golaha deegaanka uu codeeya cod buu ku noqdaa meeyar laakiin albaab lagu xiro baabuur tanina meeyar kuma noqdo haddaan wax laga qaban oo ay soo noqnoqoto waxa carqalad galaysa shaqadii annagu aan haynay xildhibaanka xasaanada waa laga qaadi karaa haddii uu ku jiro dambi farangareesa waa laga qaadi karaa sharci baa banaynaya wixii dambi gala in laga qaado maaha xildhibaan baan hay waxba la iga qaadi karo maaha isagoo agaasimaha arrimaha bulshada marka aanu waxaan leeyahay shaqada halkaas sida shalay ka dhacday ee albaabkii lagu gooyay gaariga waa mid aad iyo aad u xun bulshada saameynaysa shaqadeedii saameynaysa lacagtii dawladda ee muxuu ahaa gacanta lagu qaaday ee suuqa la sii loogeeyay saameynaysa arrinkaasi waa arrin fool xun baan leeyahay shaqaalkiin albaabka wax qalada ka dhacay goluhu ma aha inay xiradii dawladda hoose intay soo galaan shaqadiina ay ka istaagto dadkii albaabkiina la xidho horta waa fadeexad aad ugu weyn degmada khaasatan councilka si kastaba ha ahaatee shirkan jaraa'id ay maanta qabteen xubnihii ugu sarsareeyay shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Boorama ayaa ku soo beegmaya xilli oo khilaaf aad u baaxad weyn leh ka taagan yahay xarunta dawladda hoose ee magaalada Boorama kaasi oo u dhaxeeya xildhibaanada golaha deegaanka khilaafka baaxadda weyn leh ee hareeyay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Boorama ayaa ah mid aan hadda lagu soo koobi karin warbixin ama war kaasi oo ilaa iyo hadda aan la garanayn meel aliya meel uu saldhigtay balse waxa laga dhursugi doonaa halka ay ku dambayso amaba ay saldhigato xaaladda daran ee ka taagan xarunta dawladda hoose ee magaalada Boorama.